wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka furay kulan wada tashi ah oo looga hadlayo la qabsiga cimilada iyo kordhinta wax soo saarka calafka xoolaha. ugu horeyn shirkan waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale مسؤولين متليي وزارتها حنانada xoolaha dowlad goboleedyada dalka. ugu dambeyn kulankan wada tashiga ahaa oo looga hadlayay la qabsiga cimilada kordhinta wax soo saarka calafka xoolaha ayaa waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda Soomaaliya. dalkan markii laga hadlayo sektorka wax soo saarka ayaa ugu muhiimsan sektorkan wuxuu qayb badan ka qaataa horumarka dalka oo dhinac walba haday noqoto shaqo abuurka number 1 ka yahay dadka Soomaaliyeed oo maanta xoolaha ka shaqeeya tiradooda inta ay leegtahay waa ogtiin hadii ay noqoto dhinaca economiga dhaqaalaha xaqiisa haday noqotona meelaha ugu badan oo dalkan dhaqaalaha uga soo xoroodo way waliba si gaar ah lacagaha banaanka nooga soo laabto sektorka ugu badan oo lacag soo celiyo dalkan banaanka lacagta ka soo celiyo way gudahana waa garan kartiin heerka uu ka maraayo iyo korokaac uu sameeyay sanadihii la soo dhaafay sidaas aawadeed marka waxaan rabnaa arintaas ayada sidii loo labalaabi lahaa inay ka shaqeeyaan maamulada dawladda federaalka dawlad goboleedka ka tirsan iyo tiimamka wasaaradda sidee lagu horumari karaa marka number 1 waxa lagu horumari karaa ugu horeeyo sida uu saaxiibkay sheegay sida aan awal aan xoolaha aan u maareyn jirnay inaan wax badan ka bedelno dadka Soomaaliyeed waa taqaaniin waxay ahaayeen dad inta badan reer guuraa oo xoolo raacata oo waxa laga yaabaa qofka in sanadkii uu marna uu koonfur aado marna uu waqooyi aado oo xoolahaas ay socdaan sidaas si lamida waxaan rabnaa in isbedel badan lagu sameeyo oo dadku ay bartaan in sida bini aadamka iyo kale looga fikiro cuntada xoolaha oo loo kaydin karaba sanadka xoolaha waxay cuni lahaayeen dadku inay soo saartaan oo calafku ay soo saartaan oo ay meel ku keedsadaan oo biyooda ay si diyaarsadaan ay uga fikiraan sidii bini aadamka looga fikiri lahaa xoolaha waxaan inta badan ka faa'iideysanaa hilibkooda oo si guud iyo si gaar ah looga faa'iideysto banaanka dhoofka looga faa'iideysto cuntooyinka lagu cuno gudaha ee dalkana looga faa'iideysto waxaan kala rabnaa in laga faa'iideysto waxyaabaha kale oo yararka xoolaha ay soo saaraan sida xaragooda ama maqaarkooda in caanahooda naftooda la warshadeeyo oo dhowr nooc laga dhigo waxyaabo badan in laga soo saaro insha Allah ta'ala hadii Ilaahay idmo waxaan rabaa arintaas ayada in aad ka shaqeysaan kuna dadaashaan insha Allah shirkan aad ka soo saartaan waxyaabo badan oo ugu muhiimsan arimahaas